xukuumadda Ankara ayaa tilmaamtay inay wado dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qaabkii loo fuli lahaa howlgallo guud oo laga hortagayo kooxo burcada oo ilaa haatan shaki weyn ay gelinayso dowladda Turkiga qaabka kooxahaasi ay waasaasmeen. saraakiisha iyo mas'uuliyiinta Ankara ayaa waxay dhankooda tilmaameen in ay socdaan dhaqdhaqaaqyo kale oo la xiriira qaabka dowladda Turkiga ciidankooda ilaalinaya xeebaha Soomaaliya ay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo gaari lahaayeen dhanka Soomaaliya sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo kala duwan oo warbaahinta Xuraansi la hadlay. sargaal sano ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha Turkiga ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in dowladooda ay diyaar u tahay qaabkii looga hortagi lahaa wax walba oo ku aadan qaabka difaaca lagu sameyn karo, taas oo ka dhigan in ay suuragal tahay saraakiisha mas'uuliyiinta iyo xubnahanba inay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qaabka loo fulin karo howlgalladaasi. ila wareedyada waxay dhanka kala tilmaameen in dowladda federaalka Soomaaliya ay la hadashay dhanka mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda Turkiga iyagoo ka wada hadlay qaabka diiradda loo saari karo fulinta howlgalkan, taas oo ka dhigaysa in mas'uuliyiinta dacwadaha inta badan ka gudbanaya ilaalinta arrimahaas ay bilaabeen in la sameeyo dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira sidii loo raadi lahaa qorshaha iyo isku dayga guud ee arrintaasi ku saabsan. war ku soo dhacay warqabadka warbaahinta Xuraansi waxa uu muujinayaa in saraakiisha mas'uuliyiinta iyo xubnaha Turkiga in ay bilaabeen sidii arrimahaas oo idil ay uga hortagi lahaayeen, taas oo ka dhigaysa in mas'uuliyiinta iyo xubnaha dowladda Turkiga ay markaan bilaabeen raadinta qorshaha guud ee arrintaasi ku saabsan. sargaal sano ka tirsan dhanka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in maalmihii u dambeeyay dhaqdhaqaaqa abaabulka iyo isku dayga kala duwan ee arrimahaasi la xiriira ee socday inuu ahaa mid ay diiradda ku saarayaan sidii xog badan ay ugu heli lahaayeen arrimaha guud ee ka socda dhanka geeska Afrika, taas oo ka dhigaysa in mas'uuliyiinta iyo xubnaha Soomaalidu iyo kuwa Turkiduba ay bilaabaan isku milan siyaasadeed oo arrintaasi la xiriira. ciidanka ilaalada xeebaha Turkiga ayaa in muddo waxay wadaan dhaqdhaqaaqyo guud oo ku saabsan howlgalladaas, taa oo ka dhigaysa in laga hortagayo kooxo la sheegay inay yihiin burcadbadeed, kuwaas oo in muddo waday dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo si guud iyo si gaar ahaaneed ay ku raadinayaan qaabkii loo soo afjari lahaa howlgalladaasi soconaya. ilahan muhiimka ayaa dhanka kale waxay tilmaameen in maalmihii la soo dhaafay ay socdeen isku dayo kulamo iyo fadhiyo kale oo intooda badan looga dooday arrimahaasi guud oo haddii suuragal ay noqoto looga hortagi karo ciribtirka kooxaha la sheegay inay yihiin kuwa burcadbadeeda, kuwa oo naafo ku noqon kara ama naafeen kara shidaalka Soomaaliya la soo saarayo siday xaqiijiyeen ilahani kala duwan. mas'uuliyiintan ayaa waxay dhanka kala bilaabeen in ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo iyo isku dayo kala duwan, iyadoona in muddo ay socdaan howlgallo guud oo ka dhana dhanka kooxaha burcadbadeeda, waxaana la sheegay in wadamo fara badan oo diidan kheyraadka iyo horumarka Soomaaliya in ay abuureen qaabkii loo sameyn lahaa ama loo fuli lahaa guud ahaan howlgalka guud ee ku saabsan in laga hortago maraakiibta sida gaarka diiradda loo saarayo sida ay sheegeen ilahan kala duwan oo la hadlay warbaahinta. in muddo waxaa socday dhaqdhaqaaqyo guud oo ku saabsan in la sameeyo wax walba oo lagu cuuriyaamin karo shidaalka Soomaaliya, in dowladda Turkiga ay soo saarto waxyaabaha dhacay ee diiwaanka la geliyo waxaa ka mid ah si loo soo nooleeyo maraakiibta shisheeye ee ku qubi kara dhanka shidaalka Soomaaliya ama ceelasha shidaalka ee la asteeyay qashinka iyo waxyaabaha dib u dhigi kara soo saarka sida fudud ee shidaalka, in la sameeyo kooxo hubeysan oo burcada, kuwaas oo in muddo howlgalladoodii la waayay, laakiin bishii dhammaadkeeda ilaa bishan horaanta ah 2 jeer howlgal laga diiwaangeliyay. koox la sheegay inay Soomaali tahay ayaa la sheegay in ay qabsatay markabka la yiraahdo Hellas Aphrodite, waxaana la sheegay in markabkan oo ahaa mid albaabada u xirnaa ay kooxdu weysay in ay gudaha u gasho. 24 ka mid ah shaqaalaha markabka ayaa la socday. sawir la soo qaaday waxaa la sheegay in howlgalka Atlanta ee midowga Yurub ee ka hortagga burcadbadeeda maalmihii u dambeeyay inuu xoojiyay howlgalka kadib markii markab ka mid ah maraakiibtaasi uu soo galay dhanka iyo biyaha Soomaaliya. arrinta cajiibka ee la diiwaangeliyay waxaa ka mid ah in markabkan uu marayay meel u dhow ama meel
ka fog Soomaaliya ilaa 1,000 kiiloomitirna u jirta xeebaha Soomaaliya oo inta badan ah meel aanay looga baran in kooxo burcadbadeedu ay tagi karto. calanka jasiiradda Malta ee Talyaaniga dariska lah ayuu watay waxaana uu waday shidaal sida ay sheegeen mas'uuliyiinta midowga Yurub. arrintaas sida uga hadashay iyadoona dhanka kale markabka la sheegay in uu u socday dhanka iyo dalka Koonfur Afrika, taas oo ilaa haatan su'aalo badan la iska weydiinayo. wixii warar iyo dhacdooyin arrimahan ka soo kordha baahinteena tan xigta warbaahinta Xuuraansi ku daawo.